intiina nala joogta ayaa nasiib u helay caawo inay heesahaas dhageystaan inta kalena shaashadahay ka daawan doonaan waxaa noo doodaya barnaamijka sida aad ka warqabtaanba samatar siciid saalax oo ah nin runtii kaamilista ah heesaha duuba website weyna iskale isagaan ka filaynaa caawa inuu quruxdaas u gudbiyo dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan mar labaad anigoo ka mid ah fanaaniinta caawa sidaan idiin sheegay fanka anigu waa galaa waa kasoo baxaa waa galaa waa kasoo baxaa laakiin caawa kale waa lagu qasban yahay in sugaanta lagu sheekeeyo bulshada marka laftigayga waa ku jiraa qolooyinka heesaha soo diyaariyey waxaan rabaa inaan u waaco abwaan qaali ah oo runtii caawa noo xiriirin doona barnaamijka heesahana haddaan idiin sheegay heestii uu sameeyey waa heestii bal arag oo noqotay hees carab baxday waa abwaan orshe oo isukii sheegi doona isagaa barnaamijka noo xiriirin doona hadda wixii ka dambeeyana waxaan sugnaaba waa fanaaniinta abwaanka iyo abwaanka xidhiidyaha ah wixii uu soo diyaariyay ila soo dhaweeya abwaan orshe معنا ساعة المغرب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب وحن ماشي سكوني من سنة قردي سجارة تناد بطلان وأن عاوه كان فوق إنه حفلة دي. إنتاس وحن قدر يا يا نقوم هذا يا دمان ذاتك كسر شقي أردن دليل فنانينتي يا أبوان هذا دمان طربا. كهول مركا إنتان نقولين هسها وحن ربا وحير ما دام حسكي سيدة قردي بطلان أيتهاي إنا وحير وربحنا هل كان أنا كأخريو كسر لسن بطلان ترك الأساسي سبب الأساسي يوجد دوينكي لا أساسي إنتوا وحن كرر رحصل دونا هدينا كلا كله وقتي فوقين أيانا وحن تجاوزنا كي حقيقيا وهذا كله هو باهيه وايدك ضدك هو باهجوجة آدي بحاجة اللي كباهيه أغوتينا يو نغاريهنا يو everything أو مجانا ساعات قلك تامبا ضلك يدوك يدي باهيه أنت أسكت بحن برايا محل أساسي بدلان قول ما سر أساس بدلان وحل أساسي مركو أبوه الرئيسة إن لهرو نظام يوكل كمين deegaanada Puntland la isku yiraahdo xilli lagu jiray burbur dhimasho iyo dawlad la'aan oo qarka Soomaaliyeed u dhaway ayaa waxay isu taageen sidii ay ku heli lahaayeen nidaam iyo kala dambeyn iyo waliba baadi goob loo galo dawladii Soomaaliya ee dawladda dhexe loo sidii loo soo ceshan lahaa qarannimadii Soomaaliya arrimaha loo asaasay saddexdaas qodob ay ahaa asaaskii Puntland wuxuu ahaa 1998 bishii koowaad waxaa shirar isdabajooga lagu qabtay Puntland deegaanadeeda oo ay ka soo wada qayb galeen in dheergaradka aqoon-yahanada iyo siyaasiyiinta iyo dhamaantood waxaa ka soo baxay shirkaas in la helo nidaam dawli ah oo iyo Puntland xilligaas asaaskeedii iyo nidaamkaas ayaa ka soo baxay waxa ugu horeeyay Jaliil Raxmaan Allah siiye doorashadii la qabtay ugu horeysay Puntland madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed Jaliil Raxmaan Allah siiyo wuxuu ahaa madaxweynihii koowaad oo soo qabtay Puntland waxa Puntland isla markaas markii madaxweynaha ay dooratay halkilkooda dawladnimo uu ka koobnaa 3 gole sida golaha baarlamaanka golaha fulinta iyo golaha garsoorka saddexdaas gole ayaa shaqadii bilaabay Jaliil Raxmaan Allah siiyo Cabdullaahi Yuusuf Axmed waxa qabadkiisii oo ka kooban markaas aan idin guud baro waxaa ka mid ahaa
dhisidii ciidamada daraawiishta dhisidii dowladaha hoose ee puntland dowladaheeda hoose isla mar ahaantaas furitaankii bangiga dhexe ee puntland waxaa kaleeto oo intaas raacay habka dakhli samaynta ama soo xareynta cashuuraha beriga oo kaleeto waxaa ku xigay oo isla mar ahaantaas madaxweyne cabdillaahi yuusuf axmed allah naxariistay isagoo puntland madaxweyne ka ayuu wuxuu noqday madaxweynihii dowladda dhexe oo soomaaliya shirkii lagu qabtay kenya ayuu soomaaliya madaxweyne usii noqday sidaas la-adigeed waxaa xilka ku wareegay madaxweyne ku-xigeenkii madaxweyne maxamed cabdi xaashi inkastoo muddada ay yarayd oo uu sii dhamaystiray muddo ilaa 8 bilood ah maxamed cabdi xaashi waxqabadkiisi waxaa ka mid ahaa sida intii horeeto oo uu gacanta kusii hayo iyo qabashada doorasho xor ah oo xalaal ah iyo wareejinta xilka si nabad ah isla mar ahaantaas wuxuu sii xoojiyey habka yani cashuuraha xarayntoodii iyo dowladihii hoose ayuu sii dardargeliyey wuxuu kaleeto oo bilaabay sida iskuullada iyo magaranaysaa waxbarashada xaggeeda oo wax ka qabtay iyadana waxaa kabacdi noqday oo xilka ku wareegay generaal maxamuud muuse xirsi cadde alla yarxamu isaguna waxa waaye wuxuu qabtay madaxweynihii saddexaad oo soo maray puntland ayuu ahaa waxaa ka mid ahaa waxqabadkiisa si kooban markaan usoo tafatiro dhismaha aeroboortka magaalada ganacsiga ah ee boosaaso dhisidda masjidka xoolaha maxjarka xoolaha ee magaalada boosaaso waxqabadka arrimaha bulshada sida waxbarashada iyo caafimaadka soo saarista ama raadinta iyo dhiirigelinta shidaalada puntland ku jira oo iyadana heshiisyo uu la galay shirkado intaas kadib waxaa xilkii kusoo wareegay madaxweynihii afraad oo ahaa cabdiraxmaan maxamed maxamuud faroole isaguna waxyaalaha uu qabtay oo uu dhamaystiray waxaa ka mid ahaa dhamaystirka dastuurka puntland sixidda ama magac ku samaynta caladka u gaarka ah hogaaminta xiriirka caalamiga ah ee puntland oo uu isagana aada iyo aada magaranaysaa waxyaalaha uu ku guulaystay ka mid ahaa ciidamada puntland la dagaalanka burcadbadeedka dhismaha ciidamada badda puntland dejinta siyaasadda oo uu la yimi yani siyaasad xasilooni magaranaysaa ku salaysan isla mar ahaantaas iyo raadinta midnimadii soomaaliya iyo isgarabtaag uu isgarabtaagaya markastaba dowladdii markaas shaqaynaysay isaguna sidoo kale waxaa markii waqtigiisu dhammaaday xilka kusoo wareegay dowladda hadda jirta oo uu hogaamiye ka yahay doctor cabdiweli maxamed cali gaas isagana waxaan rabaa inaan in kooban ka sheego waxqabadkiisa waxaa ka mid ahaa sugidda ammaanka xuduudaha la dagaalanka argagixisada oo weliba soo noqnoqday meelo badanna ka dhacay sidaa la socotaan dejinta nidaamka dhaqaalaha oo wuxuu dejiyey nidaamkii dhaqaale ee puntland ay ku shaqeynaysay oo horey magaranaysaa yani si ka bedelan ayuu u dejiyey daadejinta haykalkii dowladnimo ilaa iyo heer tuulo wuxuu ahaa yani xaqiiqiyan la odhan karaa waa dowladdii ugu horreysay oo aada iyo aada u tagtay dhulka laamiyada ka baxsan ayuu ahaa mudane doctor cabdiweli maxamed cali gaas madaxweyne qodidda ceelal biyood oo aada iyo aada u fara badan ayuu waddanka ka qoray oo laga qoday maareynta gurmadkii abaaraha oo iyaduna ahayd masiibo aada iyo aada wax looga qabtay oo weliba uu aada isu garab taagay waxaad arkayseen isaga oo baadiye maraya oo qaybinaya macaawino sidaad la socotaan dhisidda kaabayaasha dhaqaalaha kaabayaasha dhaqaalaha waxa waaye waa wadooyinka aeroboorada iyo dekenaha iyadana wuxuu ahaa waxqabadkii ugu ballaaraa oo laga qabto qodobkaas intaanan ka gudbo waxaan rabaa inaan isu taago waxyaalihi aan soo arkay waxa waaye magaalada marka ugu yar tahay waxaa dowladda cabdiweligaas ay samaysay ilaa 85 laami oo magaalooyinka dhexdooda ah waxay kaleto oo samaysay oo gacanta ku haysaa oo dhamaystirka taagan waddadii ceerigaabo iyo ceeldaahir waxaa kaleto ay bilowday waddadii isku xidhaysay gaalkacayo iyo garowga waxay kaleto ay bilowday waddo laaniya oo isku xidhaysa ayn iyo garowga yacni waa dhanka waddooyinka dekeda waad la socotaan iyadana meesha xaaladada u marayso oo waxaan hadda idinka sheegi karaa waa idinku waxaad wada ogtihiin yani meesha marayso isitaanka aeroboortka dhamaystirkiisa oo kaleeto iyo aeroboortkii garow oo isaguna dhamaystirtaagan waxaana ku xigi doona insha allahu bililahi kariim aeroboortka kaleeto
intaas waxaan kusoo gabagabeynayaa waxqabadkii dowladihii xilligaas soo maray Puntland iyo intii madaxweynaha oo soo maray insha Allah bidillah karim waa furanaynaa barnaamijkeena waxay noo joogaa halkan fanaaniintii oo dhammaystiran insha Allah bidillah karim marka waa waxay ka bacdi waa bilaabanayna insha Allah thank you so much waxaan rabaa inaan marka hortiina keeno fanaaniinta caawa diyaarka idinku ah inay idinka qayb qaataan in xafladan oo aad iyo aad aan kulli taba anigu يعني وحقبت وضعي وحق سومرين الرفاق كاي سومرين وعن قمها العليا بسم الله الكريم كنا العبد واحد إلى سونوية سعب كبريس سعب ما مغلايو بسم الله الرحمن الرحيم أما هو في الأمين من صحبك فنانين تصرفت له شيء وكسر شقيه وشام والسلام يا أنا قاعد واحد محمود حسن بالي هذا هذا بدل أنا إذا ما هذا معي هذا خير ما بطنا هذا فنانين كيسة أبوان كي فنانين تا هو بكون دنيا وحلا قصفي taasi intaasaan kaga baxayaa waxaan idin leeyahay hambaliyo halkan caawa waxaanu isugu nimid aasaaskii dowladda Puntland 98 August 1st baanu caawa u dabaaldegaynaa kulligeedna waanu wada faraxsannahay sidaa caaway loo faraxsan yahay haddana waxay ku beegan tahay anugu oo haddeer aanu ka sii baxaynaa 19 Agost dhalashadaydii bay ahayd barka laba farxadood baa isugu kay beegmay waa maasha Allah weeye waa wax lagu farxo waxaan marayaa adduunku maantay waa gabadha lagu isku wada xiran yahay nin walba teleefankiisu kala socdaa كدوري منه محل قبتي محل دمان محل قبصومي محل ضيعان كدوري منه نقول بكل جزء كجواهيا دبنا وقولنا قلنا إنه سلام على يا رب الرحيم كسلا سرية سعيد محمد الحسين سعيد أولي يقول سلام شعبوينها تاليدها dhammaan iyo ummadda Soomaaliyeed ee caawa nagala qayb qaadanaysa farxadan laftigooda Soomaaliya way isku wada xiran tahay meel kastoo ay joogto Puntlandna waa u soo galgalatay in Soomaalinimada laga mira dhaliyo waa waxa aanu maantay hiigsanayno dadka waxaan waxay yiraahdaan haddii wax la tilmaamo Puntland waxay qaldaysaa ma qaldayso in wax la tilmaamo waxaa ku saxma waa wanaagsan weeye ciidamada amniga Puntland waa afar qaybood waa ciidanka daraawiishta ciidanka booliiska asluubta nabad sugidda dad badan baa laga yaabaa inay isweydiiyaan magacyo kale oo aad maqasheen inaad tirahdaan kuwaasina maxay ahaayeen korneyl kuyuu ka tegey waxaa qaldan maya ma qaldana koox waliba meel bay ka tirsan tahay PSF military ka tirsan yihiin daraawiishta hoostagaan PLPF oo Marines Police hoostagaan waa Puntland Police Marines Force asluubtana waa ciidankii waa afarta ciidan ee dastuuriyan sharciga ah laamaha kalena waa ajantiyo shaqeeya laamaha ciidanka duruufo adag bay ciidan ku soo shaqeeyeen iyagoo dhaawac iyo dhimasho iyo daryeel xumo leh aanu ku soo dhaawacnay dagaalkii u dambeeyay garacadana waa ku dhaawacmay أنا أقول سوالي سبب بلومينا نيروبي شوغي وعلىها طلبة وهيجا يمين سكورتي لقاها الليو كوان كولا شقينا إيست أفريقيا كولا الليجازو
أنا شركي ولي كتيرا ترى مقاشين أو ليه بقول وأفر بقول ما يقرأ كسر تكتي بقول ستة يتطلع كسر تكتي سوج يقرأ ما غير دام تجي صويا تسوي حين الديارات حسنا بشربنا وصارا ما قدر كي تنبأ بعوضها يا رجل الإسلامي دمشق هو حق داود هو حق دل الملك يسير يا إن نرد يد لجبر بريو أفغانستان يا ميرا إن أنكرنا وحنا قاعدين كرماهم وحنا يلينا معهم وحنا دخل كلنا هاي معهم ما الدهون يلينا نظر كيكو بديو عدوهم ذلك وقت شوغا وانا ارجع حساب عام كذا طالب في بعض العدو كانوا بنت الان اي شكو مشغول سنين مثلا وارجع حساب دولة هذا اللي يقول شوكان باوران باور في كذا قوة يفهم أو أفضل لا تكسر الله ترى يسأل والله ترى يا هذا أول يوم وحنا يسأل من جبل يبغى تعلمان لا تستعلا كلام ترى يا إن شاء الله وانا بقول لسان دونا orang ada buraha al-Madun al-Miskat kuharsan tasina sya'ab karir butulan ilmu al-Amriga ini iskakar syadaan balon bahaya على إذا وتبدأ النسوي اللي ينالي ويروح بعد عيدا باوع أخذ عن ويدعيا يبغى من بعض الاستياس على مصاف مركا أفضل من يفضل يش صدق من يوم ما يسا اللي يحسده وامس مروري إلى يوم بدو كهو استسياي إلا صوت ما ينا إن شاء الله وقول سرنا وعلى السلام يا سلام كائنا يسوع أسيان لا توري وعامل بالحسد اللي فرحت أن أنا هذا كسر وضمه وعند الله همبلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رددي بالكيلوغات دلكم ماشو كبحو إلا حالين داو لسنا دايما دا كبحو رددي بالكيلوغات دلكم ماشو كبحو إلا حالين داو لسنا دايما دا كبحو dido kadida deegaanada reer Puntland dawlina batayaya dadkooda horumar jecel dido kadida تاريخها اسكوري ودلو حوليو وقتي لتاقو يبقر شديد وقتي لتاقو يبقر شديد الكرابو إيو كرابور كداعي كاركي قدبدا يقتي وكداعي تاريخها اسكوري ودلو حوليو وقتي لتاقو يبقر شديد لتاقو يبقر شديد الكرابو إيو كرابور كداعي كاركي قدبدا يقتي وكداعي كلا وقبو كما كابنين يقو كنت ديك شماتة تمين كلا وقبو كما كابنين يقو كنت ديك شماتة تمين Kula
داشي الحترين الكودي على ضيقريا يتبارا وبايل وقروا ربيو عديدا عنك بارينيا وشادني داشي الحترين الكودي على ضيقريا Sare
bastay socotay alowdhow marna waadka say tahay soomaalinimadii soo celisay maante caalankeennii suran yahay
sana bari iyo karkaar dhammaan lagu wadaanagahay dhammaan soonaha bullaha dhammaan soonaha bullaha Itagar wadiyo tugandu marayo dulaha kuna abiyo kahay dibato waliga hadeli Itagar wadiyo tugandu marayo dulaha kuna abiyo kahay dibato waliga hadeli الله يبلا دور الله هالس كدير الله دافيا فيو دعدا له فرحينو ودنتا شقرا كنا الله يبلا دور الله هالس كدير الله دافيا فيو دعدا له فرحينو ودنتا شقرا كنا فيو دعدا لغو فرحينو ودنتا شقرا كنا
marayan darariyo habeen habeen inay dhaban hurdada dhig dhinacaaga joogan dar waxay ku marayan darariyo habeen habeen inay dhaban hurdada dhig dhinacaaga joogan allah ayo bulaan dhowr allow haliska dheere allow dhaafiyo dhacda lagu farxayno oo dhantaasho qarankeena waxay dhiirigelisaa dastuurkaynu dhigano dhabahayu xaadha inuu dhaqan galaayo qaynuunkeenu dheelin waxay dhiirigelisaa dastuurkaynu dhigano dhabahayu xaadha inuu dhaqan galaayo qaynuunkeenu dheelin dhowr allow haliska dheere allow dhaafiyo dhacda lagu farxayno oo dhantaasho qarankeena lankastu la igaba loo wada dhan yahay haddii uu dhib yari dhaco in la daasho dhiigiyo dhagartiyo colaadaha lama dhiirigeliye waxa lagu dhameeyaa dulka nabad ku baado la dhexdhiga bulshada lankastu la igaba loo wada dhan yahay allah ayo bulaan dhowr allow haliska dheere allow dhaafiyo dhacda lagu farxayno oo dhantaasho qarankeena